asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenii diblomaasi. ciidamada maraykanka ee ku sugan dalka suuriya waxay dhulka soo dhigeen daroon ay isticmaalayeen ciidamada milatariga ee dalka turkigu. daroontan ayaa waxay ahayd mid ay ciidamada turkiga ku duqeynayeen kooxaha YPG oo ka mid a kooxaha kurdiyiinta ee qaswadayaasha ee had iyo gooraale turkiga weerarada kaga soo qaada waqooyiyada dalalka ciraaq iyo suuriya. ciidamada cirka dalka turkiga ayaa indhawaalaba waxay wadeen howlgallo ay ku bartilmaameysanayaan kooxaha qaswadayaasha ee kurdiyiinta ee ku sugan waqooyiyada ciraaq iyo suuriya kadib qaraxii dhowaantan ka dhacay magaalada caasimadda waa dadka turkida ee ankara. balse daroontan ayaa la sheegay maalinimadii shalay inay ku howlaneed howlgallo inay ka fuliso bariga dalka suuriya. ciidamada maraykanka ee dhulka soo dhigay daroontani waxay sheegeen inay u soo jirsatay daroontani wax ka yar 1 kilomitir saldhigga ciidamada maraykanku ay ku leeyihiin bariga dalka suuriya. arrinta kurdiyiinta ayaa waxay tahay mid kala fogeysay dalalka turkiga iyo maraykanka. waynu wada ognahay inay yihiin laba dowladood oo ka wada tirsan gaashaanbuurta nato. kurdiyiinta YPG-da ayay dowladda maraykanku hubaysaa waxayna sheegtaa inay yihiin kuwo ka howlan inay la dagaalamaan ururka daacish iyo weliba dowladda isayaan ee bashaar al asad madaxa ka yahay, halka dowladda turkigu ay u aqoonsan tahay kooxdaasu inay tahay qayb ka tirsan ururka argagixisada ee PKK-da. waa markii ugu horreysay ee dowladda maraykanku dhulka soo dhigto gaadiid ay leedahay dowlad ka tirsan gaashaanbuurta nato. innagu horeba daawadayaal waxaynu u ogeyn dowladaha reer galbeedka inay yihiin kuwo si weyn u necab dadka muslimiinta ah. waxaynu la soconay dowladda turkiga oo ahta keliya muslim ee ka tirsan gaashaanbuurta nato inay indhawaalaba ula boocla ugu tukubayeen. nacaybka noocan iyo ku-xadgudbidda ay dowladda turkiga ku hayaan dowladaha reer galbeedka ee kala tirsan gaashaanbuurta nato waxa uu ahaa kii madaxweynaha dalka turkiga Rajab Tayyip Erdogan ka fogeynaya madaxdii u kala dambeysay ka talinta aqalka cad ee dalka maraykanka oo iyagu had iyo gooraale cadaawad u muujin jiray dowladda turkiga una dhoweynayey madaxweynaha dalka ruushka ee Vladimir Putin oo ay madaxweyne Erdogan haatan kala dhaxayso saaxiibtinimo aad u weyni. gaashaanbuurta nato iyo xoogayaheeda guud ayaan weli arrintan ka hadlin. waxaanuse filaynaa saacadaha soo socda inay gaashaanbuurta nato ka hadli doonaan dhacdada foosha xun. qoraal yaroo kooban oo ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee dalka maraykanka waxay ku sheegeen inay ka xun yihiin wixii dhacay. dowladda maraykankuna marnaba aanu qorshayn inay soo rido gaadiid ay leedahay dowlad kaloo ka tirsan gaashaanbuurta nato. xogayaha gaashaandhigga ee dalka maraykanka Lloyd Austin ayaa la sheegay inuu la xiriiro dhiggiisa dalka turkiga kuna qanciyey in dowladda turkigu ay xaaladda dhulka ay u dhigto ayna ka wada hadlaan labada dowladood khasaaradii maalinimadii shalay dhacday. waxaynu indhaha ku haynaynaa gaashaanbuurta nato iyo qoraalka ay ka soo saaraan arrintan iyo go'aanka uu qaato madaxweynaha dalka turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo isagu ah ninaynaan ku aqoon inuu ka labalabayo xuquuqda dadka turkiga iyo kuwa muslimiinta ah. daawada adiga ma kula tahay dowladda maraykanku si ku talagal ah inay daroontaa turkiga u soo riday, mise waxaad aaminsan tahay in khalad farsamo uu halkaa ka dhacay? ciidamada maraykankuna ay daroontaa turkigu ayna ognahay inay dowladda turkigu tahay mid ku horumarsan samaynta daroonnada ay nafsadooda uga baqeen. fadlan aragtidaada nagula wadaa qaab commentiya mahadsanid. hana ilaawin muuqaalka inaad inoo laygarayso inoona sii sheergarayso. haddii aad tahay daawadaan weli kanaalka ku soo biirinna nagu soo biir si aad u daawato muuqaallo midba uu ka sarreeyo kanuu ka dambeeyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
자축방 환자 1명, 환자 1명.